dumarka Soomaaliyeed ayaa dhaliil dusha uga tuuray ragga Soomaaliyeed kuna sheegay inaysan romantic ahayn balse warbixin mid ka gidisan ayaa la soo saaray balse jawaabta ay ka celin doonaan dumarka Soomaaliyeed maxay noqon doontaa aynu ku bilaawno dumarkeena Soomaaliyeed oo gabdhaha ugu quruxda badan Afrika hase ahaatee hadallo la isla dhexmaraya baryahan ee ka socday social media ayaa ahaa in ragga Soomaaliyeed aysan ka aqoonin waxbana xagga romantiga balse warbixintan lagu soo bandhigay Kenya gaar ahaan Nairobi xarunta dhaqanka iyo madandaalada iyo qosolka ayaa lagu sheegay in ragga Soomaaliyeed yihiin dadka ugu romantiga badan Afrika. Even if they don't look like it right now. Ladies, do you know right about now, report just in say the most romantic men in Africa. In Africa, not Nigerians, not Kenyans. The most romantic men in Africa, report Justin says. Are you ready for this? The Somalis. You know, Somalis are number one. Somalis are the only men. They don't beat about the bush. Gabdhaha Soomaaliyeed boqolkiiba 80 ayaa wada aaminsan inay ragga Soomaaliyeed romantic ahayn balse warbixintan ayaa lagu sheegay inay yihiin ragga Soomaaliyeed dadka ugu romantiga badan Afrika. Maxayse gabdhaha Soomaaliyeed uga jawaab celin doonaan arrintan? Barnaamij midkan la mid intaynu ku kulmi doono daawada sida ay nabadgelyo.